بسم الله الرحمن الرحيم واسم تركي اسكول مال مقدشو اسكول بلغة تركيا معلومات دي xaruntii imaanaysa adigoo heli galaas toos loo soo xadiro qaybtan waa grammarkii waa geejmi zamaan oo ahay simple past haynay buuggeeni waa gabagabo cashirkii ugu dambeeyay waayo oo ah grammarka chapterkiisa sideed ayuu ku yaalay ardaydeen heerka soo garto waan u madcelinaya si wanaagsan daacadda ah isxilqaanka ah adkaysiga halkan ay kusoo gaareen waan filayaa buugtoona sidoo kaleeta inay ka gudbi doonaan insha allah engagement zaman waxa waaye simple past ficil tagay soorma ku yahay su'aal sameeyaha luqadda turkiga waxa uu ka siman yahay inuu isu raaco laba a i waxa waa mi a i waa mi o iyo u waa mu o leh dhibicna waxa waa mu been anigu yaa soo qaado yaas markaa soo qaadato ficilka baas ka dhig baas markaa ka dhigto haddana su'aal sameey u samey yaas yazdim soo dhahay yazdim waan qoray yazdin waa qortay yazdi wuu qoray yazdik waa qornay yazdinis waa qortay yazdilaar way qoreen su'aal sameysa waa mo miyaha mo waxaa ka dambeeyo iyo duqdi waa kana mi waa yazdin miyaan qoray yazdin miyaa qortay yazdi miyuu qoray yazdik miyaan qornay yazdinis miyaa qorteen yazdilaar miyay qoreen tan waa qaacidadii doon waxa waaye laabasho wuxuu ku dhammaaday na oo ah ka dambeyn leh dhibic oo dhibicna waxaan ku diray doon waan laabtay doon waa laabatay doondu wuu laabtay doondug waa laabanay doondunus waa laabateen doonduleer way laabteen markaan sidaan aan qoro waa positive laakiin waxaan rabaa inaan ka dhigo su'aal sameeyaan ku diraa waxaan leeyahay ma waxaa ka dambeeya uu leh dhibic waa kana oo iyo uu leh dhibic waxaa u samey su'aal mu kaan ka dhigay mi aan ka dhigay sababta maxay tahay aanan miyaa u dhigay leeran fiiyey waxaan dhahay mu miyaa uu miyaha waa mu hadda waa marka a iyo ena waa mi sidaas ayaan mi ooga dhigay mar walba waxaa la fiirinaa shaqalka waxaa la fiirinaa dhow waa la fiirinaa o iyo u waxaa dhow u aa dhow o iyo e waxaa dhow e aa dhow doondun mu miyaan laabtay doondun mu miyaan laabatay doondu mu miyuu laabtay doondug mu miyaan laabanin doondunus mu miyaa laabateen doonduleer miyay laabteen aaj soo laabanaa macalin waan soo laabanaa waa kana macalin op waa dhuunkasho dhuunkasho waa miyaan dhuunkada dheh dum samahayn had laakiin ba waxay ka mid ahayd xarfihii fistation haddii aad fahamtay positiveka sowrugana waa fahmaysaa obtun ayaan leeyahay waan dhuunkaday obtun waa dhuunkatay obtu wuu dhuunkaday ama way dhuunkatay obtug waa dhuunkanay obtunus waa dhuunkateen obtuleer way dhuunkadeen su'aal samey waqtan marka ta shaqalka ugu dambeeya waa u waxa u sameeyay su'aal samey mu waa obtun mu miyaan dhuunkaday obtun mu miyaa dhuunkatay obtu mu miyuu dhuunkaday obtug mu miyaa dhuunkateen obtug mu miyaan dhuunkanay obtunus mu miyaa dhuunkateen obtuleer leera imaatay hadday imaatay leerna mu waxay ka baxaysaa meesha sababtoo ah e ayaa la fiirinayaa mi ayaa leeyahay obtuleer miyay dhuunkadeen doon uu soo celiyey doon waa laabasho doondum ayuu yidhi mu miyaan laabtay doondun mu miyaa laabatay doondu mu doondug mu sidaas macayaan ayaa loo shaqeeya hadda waxaa ka shaqeynaysa adiga koonuush oo hadal iyo waxaa kasoo shaqeynaysaa kalk oo istaag iyo waxaa kasoo shaqeynaysaa geel oo soo gal